السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات مeel kastoo aad joogtaan aad baan idin salaamaya soo dhawaada mar kale maanta waxaan ku wajahannahay Somaliland waa dhul Soomaaliyeed maasha Allah asagana maamul baa ka jira hoggaan baa ka jira hoggaan dadka kala dhiciya hoggaan dadka maamulo oo la doortay dadka doorteen oo wixii dadkaas ay rabaan mase shacabka waxa ay rabaan ku dhaqmayo oo ay dadka doorteen awilkii qofka la doortayna loo doortay mase shacab haday wax doortaan waxa loo doortaa qofkan wixii ay rabaan inuu u sameeyo mase u qabto ba horta shacabku waxa u doortaa Somaliland waxa hogaamiya mase madaxweyne ka ah nan la yiraahdo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi laakiin Muuse Biixi Cabdi marka laga soo tago dad waxa jira xukunkiisa dhaliilsan mase hoggaankiisa dad ka soo horjeeda baa jira iyo dad asiga taageersan oo hoggaankiisa mase maamulkiisa dad taageersan baa jira taageerada marka laga soo tago haddana waxa jira dad ay dawladda lug ku lahayn xildhibaan ahayn siyaasi amaartay wasiir ahayn hatta askari aan ahayn xitaa mucaarad aan ahayn oo shacab ah oo haddana u hadlay sidii nin hoggaan haya mase hoggaanka hadda talada haya nin aad moodid inuu ka mid yahay aad moodid hadaladiisii markii aad dhagaysato markii aad hadalada si fiican u dhagaysato maskaxdaada waxay soo qabanaysaa warniyow ninka dalkaasi maamula mase madaxweynaha dhulkaasi maamula mase maamulka dhulkaas hogaamiya waxaad isdhahaysaa waad ilaawaysaa inuu yahay Muuse Biixi waxaad soo qabanaysaa maartay inuu yahay ninka muuqaalka ku tusi doono oo ninka meesha ka muuqda ninkaanay boqolaal jeer baad maqasheen oo hadaladiisa asigoo leh maartay hamar ha ulisho hamar ha gabato hamar saas Allah ka yeelo iyo maalinkii ugu dambeysay badii la dhiibay ninkii taageeray buu ahaa oo waliba shacab ahaa oo waliba ku baagay inuu garow iyo maartay Soomaaliya qayb kamid ah uu dagaalka geey doono oo dagaal ku tagi doono xuduudaha Soomaaliya la soo celin doono ninkii ku dhawaaqay buu ahaa maanta waxa meel la soo istaagay mase bannaan la soo istaagay uu leeyahay oo uu hanjabayo ninka hadalkiisa dhageysta bal waa kana ninkii dhageysta iyo 20 saacadood ama magaalada Hargeysa ayaad kaga bixi doontaa ama waxaad ku joogi doontaa dalka idab wina Muuse Biixi markaad soo hadal qaadaysid ee aad magacayga Suldaan iskama jiro soo hadal qaadaysid waa inaad soo weysiisataa amsacu ko 24 saacadood ee ugu dambeeyay hadalada uu ku hadlayo hatta qaarkood oo waxa ku jira xitaa diinta looga bixi karo Suldaan iskama jiro markii magaciisa aad soo qaadayso waa inaad soo weysa qaadataa waa u fiirsada magacayga markaa soo qaadayso waa inaad soo weysa qaadataa hadaladaasi oo kale xitaa waa hadalo diinta gefku ah ninkan aniga waxaan isdhixi karaa boqolkiiba 70 ninka maskaxdiisa caafimaadkeeda waxba ka maqan ninkan xanuunsan yahay saan aragtideedu waay marka antaasi horta asiga gooni u tahay ninbuu weerar ku yahay oo ninkaasi oo ah nin hadda koor intuu meel soo fadhiistay islaantii garow tagtay oo maarta halkaas xeesa ka qabatay Hargeysa markay timaado beerka dhulka loo dhigay oo maartay waa la qabanaya muuqaal intuu soo dhigay baa nin gabadh la dhashay buu oo gabadha ay walaal yihiin baa asigna Hargeysa ka hadlay oo isla markiiba maartay dhawaaqay asigna yiri haddii aad rag tahay taabo ninka marka halkaas u jawaabaya taas asiga gooni u tahay marka waxaad kala sii dhageysatiin ninka xeerka uu hanjabaadka mase hanjabaadkiisa xalku gaarsiiyay
ma aha wax la dhayalsin kara isla markii waxaad kugu soo dhacayso ninkan in asiga uu yahay ninka dalka hogaamiya waxaan arkayay oo social media aan ku arkayay wiil calacalaya barooranaya oo ooyaya waxaan u malaynayaa intaaba reer Sheekh Isxaaq hiddo umay lahayn taasi waxay ahayd hordhac laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan anigu adiga ka mas'uulahay reer Sheekh Isxaaq oo dhanna anaga ka mas'uula run ahaantii reer waqooyi marka la yiraahdo dadkan mase gobolada kale mase koonfurta Soomaaliya reer waqooyi marka la yiraahdo waxa laga raaci jiray oo kaliya hal qadiidood qadiidaasi oo ah reer Soomaaliland ma yaqaanaan qabyaalada taasi oo ka dhigtay dhulkooda in uu noqdo nabad dhul loo xiiso maartay dhul maasha Allah oo aad dadka u riyaagaan taasi oo ay noqotay dastuur iyo xeer ay degsadeen ay dadka isku raaceen taas oo aakhirkii noqotay meesha inay ka saaraan qabyaalada hadda ninkan wuxuu meel la soo istaagay idinka hadda ra'iisul xadiya tihiin annaka mas'uul idinka ah Allah subhanahu wa ta'ala dadka abuuray xitaa waa la ilaaway wuxuu yiri aniga mas'uul idinka ah ya haye madaxweyne Muuse Biixi ninka ka hor yimaada ama ka soo horjeesta xusbiga kulmiye adduunka kuma sii noolaan karayo madaxweyne Muuse Biixi ninka ka soo horjeesta mase xisbiga kulmiye ninka ka soo horjeesta dunida ma ku sii noolaan karo waxaad dareemaysaa ninkaanay hadaladiisa markii si fiican miisaanka la saaro waxa kugu soo dhacayso nimanka dadka xirxira mase sirdoonka qarsano sirdoonka maartay qarsoona leeyahay mase dadka dhibaateeya inuu ka mid yahay sababtoo ah hadalada uu ku hadlayo xitaa mucaaradka kuma hadlaan hadalada uu ku hadlo xitaa mucaaradka kuma xitaa nin mucaarada kuma hadli karo hildhibaan iska dhaaf siyaasi iska dhaaf kuma hadli karo hadalada uu ku hadlayo wax adeegsan kara oo kaliya xisbiga mase maartay maamulka meesha ka jira nin hogaamiye kaliya ayaa maartay adeegsan kara hadalada uu adeegsanay ya kuma sii noolaan karay yacni hadalada waxa adeegsan kara taliyaha ciidanka mase madaxweynaha golaha wasiirada hadda shaqeeya dadkaas un baa adeegsan kara ma aha hadallo cid kale adeegsan karto 24 saacadood ayaan kuu qabanayaa 24 saacadood ama magaalada Hargeysa ayaad kaga bixi doontaa ama waxaad ku joogi doontaa dalka idab iyo akhlaaq iyo deganaasho dadkii dalkan deegaanka u ahaa ayaa kula hadlaya 24 saac ayaan kuu qabtay haddaad dalka kaga bixin war hadalada uu adeegsanayo haddii aad dalka kaga bixin ma taliyaha ciidanka miya ma wasiirada golaha wasiirada muu ka mid yahay madaxweynaha miya war hadalada uu adeegsanayo ma aha hadallo xitaa dadka mas'uuliyiinta hataa adeegsadaan ma aha wuxuu adeegsanayaa hadallo oo adeegsan karaan ninka madaxweynaha mastaliha ciidanka hadalada adeegsan karaan buu adeegsanaya taasi oo ka dhigan ninkan amarka anaa bixiyay hal la dilo amarka anaa bixiyay hal la xiro amarka anaa bixiyay hal hadaladaasi oo kale waa hadallo ma aha maartay qof shacaba ku hadli karo anigoo magacayga ku hadlaya iyo magaca ummadda iyo shacabka reer Somaliland waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixi markaad soo hadal qaadaysid ee aad magacayga suldaan iskama jiro soo hadal qaadaysid waa inaad soo weysiisataa fartayda iyo farta shacabka Somaliland Muuse Biixi bay u kareysantay shacabka Somaliland haddii aan ka hadlo dhanka kale cid kale cod uma hayso aan Muuse ahayn waxaan u malaynayaa
mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku leeyahay oon kugu wargelinayaa inaad nidaamka dowladnimo aad ilaalisid waanad ku qasbantay mid lagaa baryayana maaha taasi waa midda labaad ee aan ummadda iyo shacabka jamhuuriyadda somalilan aan u dirayaa waxay tahay ciidanka jamhuuriyadda somalilan waa qaar ka madax bannaan jahliga dulmiga cadaalad darrada iyo saboolnimada nooc kasta ha ahaadaan boolis shirdoon migration military iyo asluubba waa in lala shaqeeyaa oo waa in la garab istaagaa intaasaan hadalkayga ku soo koobayaa caafimaad iyo bashbash iyo nabad qabna weydiir ninka hadalkiisa intuu ku egyahay laakiin qaybta ugu dambayso weliba aniga ma rabin inaan ka hadlo laakiin asiga ka dhawaajiyey taasi oo ah ciidanka booliska xaqdarrada ma galaan dad ma dulmiyaan war ciidankii mase ciidanka hadda aad leedahay waxbay ilaalinayaan war ninkii nin masaakiina oo dadka tabaalaysan wax u qabta mase dadka tabarta yar gargaara antay guriga isugu tageen hooyadiis oo 80 jir heshmeen waayeen antay dulmara hortiis intee lagu garaacay ay ku jirtileen ay baaburuntay saare ay la kaceen dadkaas ma wax ma xishmeeyeen war dadkii nin culimo ah oo masaajid ka hadlay oo muxaadaro mase khudbad uu jeediyey dartiis inta la weeraray xataa darbi ka booday asiga naftiis halligay ma kuwaas maxay xishmeeyeen war dadkii ciidankii ilaahay baan kugu dhaariyey ilaahay ka xishoon waayey rasuulkiis ka xishoon waayey dad masaakiina dad masaakiina oo ciidanka isku tirsanaayeen mase gobolka ka tirsanaayeen ay waxba u raaban waayeen oo ay baabaxda ka dhigeen oo intaasoo kun oo qof ay dileen intaasoo kun oo qofna ay gaxiyeen ma dadkaasaa lagu tilma aad leedahay dad sharaf leh waay midda kale marka adiga aad leedahay qaanuunka halli ilaaliya marka adiga aad leedahay qaanuunka ninka ilaalinaya ma adiga mase madaxweynaha waay dalka yaa hogaamiya horta ma ninkii maalin caddeey meeshii caruurtiisa ay ugu baashaali lahayd ugu rahaysan lahayd mustaqbalkii antuu tagay xabash intuu u saxiiri maalin caddeey qaati yiri oo siyaasi mucaarad warka maqli waayey xitaa kuwii asaga la shaqaynayay markii ay la taleen oo warka ka diideen oo xilka ka qaaday oo yiri ninkas meesha tax ka baxa oo maamo 80 jire wiilka horta lagu jirtilay oo ninkii ugu dambeeyay oo hadda la dhabaatay mas hadda xabsi ku jiro sanad iyo intaasoo lacag lagu xukumay waa abaankii ugu dambeeyay la xiray war dastuurkii adiga aad lahaadeen qofka kasta muwaadin reer Soomaaliland wax xaq u siinay inuu hadli karo si xuriyaan u hadli karo maxaad u lahaadeen aaw dastuurka qorteen war dastuurkii ummadda aska saarteen aad dhahdeen Soomaali aad dhahdeen mas ummadda koonfur waxaad kaliya dadkaasi aad kaga baxsanaadeen mas dadkaas aad kaga dugneedeen inaad haysatiin dastuur amees ka dhigteen waxa la yiraahdo qabyaalad oo aad maartay qaanuun iyo xeer adag idinka aad qorateen aad ku dhaqantiin war xeerkaad ku dhaqmaysan hagaad geyseen aniga hanoo dambayso wixii adiga aad dhihi jirtay koonfur ha olosho iyo hamar ha olosho meel hanoo taaleey maxay ahaayeen boqolkii qof idinka aad leeysan intaasoo kun oo qof aad leeysan intaasoo kun qof aad gaxseen oo guriyahooda aad gubteen oo markii dambe idinkoo farta qarina hindhihin shantii maalin caddeey liiri irdaas ka baxa oo leedan saaray ciil aad u qabtaan reer laas aano mas asasiya ciil aad u qabtaan maalin caddeey inta halkaa ka dhoofteen aad isaba tagteen badin aad saxiixdeen aad maanta meel soo istaagtay waxaad leedahay sharciga hal ilaaliyo qofka sharciga ilaalinaya waayo madaxweynaha dalka miyaa taadi
wasiirka miyaa tahay hildhibaanka miyaa tahay yaa ilaalinaa dalka haya qaanuunka yaa ilaalinaya aan ku weydiiye adiga xildhibaan miyaa tahay wasiir miyaa tahay madaxweyne miyaa tahay yaa qaanuunka idda ilaalinaysa yaa waay ninkii qaanuunka ilaalin lahaa mase xeerarka ninkii ilaalin lahaa dastuurka aqorateen ninkii ilaalin lahaa waa ninka maalin addi intuu baddiisa intuu iibiye yiri iska qaata xeerka ninkii ilaalinaya waayo ya maxaad ugu qorteen maxaad u sheegteen dastuur dadka u banaanaya inay hadlaan ayaan haysana maxaad ula heleen ninkii samafale cabdimaalig muuse oldoon ninkii ka xishoon waayey oo haddana ka xishoon waaye maamo 80 jir hooyadiisa hortiis lagu jildiray ninkii ka xishoon waaye ninkii abwaan buu qoray oo maskaxaas ka soo maahday ninkii maartay ka xishoon waaye war ninkii boqolaal qof mase kumnaan kun oo qof dilkooda ninka ka xishoon waaye oo asagaba wuxuu ku maqan yahay ay tahay hadda ka hor baana la laayay nin intaas ku maqan oo 100,000 oo qof laayay war xeelaka dalka ilaalinay mas adiga ilaalinaya adiga oo waalan oo sidan u yaala ya horta ninkii dad kitaabkii Allah subhanahu wa ta'ala dad ka tegay miyaa ilaalinaya warqad la qoray mase maaragtay wax meel lagu xariiqay oo qof bani aadam gacantiis ku qortay miyaa kula tahay inay ilaalinayaan haye ma caqligaas rabta marka inaad dadka u sheegtid ilaahay ha ku caafiyo ilaahay ha ku caafiyo halkaasi waxaad ka ogaanaysaa mase aad ka garanaysiin wixii reer Somaliland koonfurta ay ugu fiicnaayeen taasi oo ahayd qabyaalad nooc dastuur la raacin oo degan dadkii israacsan wixii oo dhan maanta ilbaabad aan loo xiray oo aan qof la daysan jirin ya war wixii anaga nagu aay jirteen mas anaga nagu haysateen oo aadna la hadeen hadda kor baa koonfurna hasuuqtay aadna la hadeen hasuuqi haddaad wadiin hadda idinka hasuuqi wadiin laakiin falillaahi alxamdulillah inaa baddaasay aad gaddaanoo nagu tataabataan danaa noogu jirto danta noogu jirto waxay tahay shacabkii intaasoo sano naga maqanaabaa noo soo laabanaya mar hadday farta taagaan ay dhahaan Soomaaliyana soo gaar hadday dhahaanna ilaahay baan ku dhaartay ninka Kenya jooga hadda meeshuu tagaa waxa talad baa iska rabaa garowaan qabanayna dhulka xuduudaha waa la soo celinayaa soo celi waa ka saay ina soo celis iska dhaafe xitaa gooja hadda meel barta ka arki kartaa ma tagi kartaa meel gooja hadda barta ka arki karto xitaa ma tagi kartaa horta waraa stitch dalka ada maamulka ma hogaamisid madaxweyne kama tihid dalkaas madaxweynuu leeyahay camarada adiga aad bixinaysana anti adiga as leedahay waa hal lagu arko madaxweyne maal ha ku siiyo lacag hal ku siiyo maartay xanta hal lagu siiyo inta adiga as leedahay adeer dhalinyaro muxalligiina oo muuse biixi iyo ciidankaas u xanaagsan dhahdaha u gali adeer stitch adeer meesha dhalinyaraha meesha joogto sax hadrad adig aad ku hadlayso oo adiga aad leedahay reer sheeg isxaaq aniga mas'uul ka ah war allihii abuurtay mas'uulka adiga mas'uulka ma tihid hadrad aad ku hadlayso intii adiga as leedahay muuse biixi xanta ka hel mase maartay lacagaha lagu soo diro waxa ka hel inta as leedahay adeer dhalinyaro xanaagsan dhahdaha u gali stitch calm down stitch waa fahmaysaa sooma adeer istilaali بليز موقال كان هادوك سو غاري سبسكرايب يسار ان شاء الله بشر رمضان ماشي لغا غارو 1K بس هدا ايغاسيسين انا فانكو اهي اد بدو ما سنتين